بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دعودياشا قيمها لي الدنيا ميل كستاد كجوكتان حل كستاد جوكتان وحن دكو سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن إلهي سبحانه وتعالى كبر يا حل كستاد كجرتان إنه وقتيين إذن بركايو أولادينا إذين بركايو عمرينا إي عافماتكينا إي عقلقينا إذين بركايو intaa kadib waa qayb ka mid a barnaamijyadeennii taxanaha ahaan jiray ee ku saabsanaa wacyigelinta iyo inaynu isu sheegno waxyaalaha nolosheenna adduunyo iyo kuwa aakhiraba anfacaya runtii waxaan rabaa inaad maanta ila qaybsataan mowduuc muddoba aan ka fikirayo madaxayga aada ugu jiray waa mowduuc aada ballaaran runtii aragtida anigu aan ka qabo ayaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo waana runtii mowduuca ah dhibaatada Soomaaliya salkeeda dhibaatadan xaggee weeye salkeedu ama maxaa sabab u ah xalkeeduna waa xaggee xalkeeduna waa maxay dhibaatada salkeeduna waa maxay waxaan rabnaa bal inaa ila eegtaan daraasad iyo fikir aan isku soo ururiyey oo ku saabsan sababta sida aynu ku jirno iyo xaaladda aynu ku jirno maxaa sabab ah waxaa dhici karta dadku inay aragtiyo kala duwan ka qabaan dadka qaar baa inta badan mas-uuliyadda dadka Soomaalida ka qaada oo yiraahda dhibaatada dadka Soomaalida haysata waa dhibaato ay sababeen awoodo shisheeye wadamo deynisa wadamo reer galbeed ah dad badan in mas-uuliyadda dadka Soomaalida intii laga qaado la yiraahdo dadkaasaa mas-uuliyadda iska leh dadka qaarna waxay qabaan aragti ah dhibaatada Soomaalidu waa qabyaaladda iyo qabiilka iyo aqoon darrada iyo jahliga iyo waxyaalo badan dadka qaar waxay ku tilmaamayaan dhibaatada Soomaaliya marka laga hadlayo maamuladii waddanka soo maray iyo xukuumadihii soo maray tii militariga ahayd tii ka horreysay oo dadka qaarna waxay focus ka saarayaan oo u leexinayaan dhinacaas xukuumadihii soo maray aniga marka qof ahaan aragtida aan qabo ayaan idiin soo gudbinayaa dhibaatada Soomaalida haysata inaad bal igala fikirtaan waa maxay dhibaatadan salkeedu kadibna waxaynu isla qaabayn doonaa waa maxay xalkeedu marka aan rabno ummad habnololeedkeeda ummad siday u nooshahay waxa qaabeeya ama qaabka ay noqonayso sameeya habdhaqankeeda waxaa dhici karta arrintaa in aada loogu baraarugin ummadani sida ay u habnololeedkeedu yahay waxa samaynaya fikirkeeda siday dadkaas u fikirayaan sida ay dadkaasi u fikirayaan waxaa ka dhalanaya waxay dadkaasi aaminsan yihiin dadkaasi waxay aaminsan yihiinna waxaa ka dhalanaya siday u dhaqmayaan maxay tahay macnaheedu taas aan idiin soo qaato dhaqamadaynu lahayn xilligii aynu reer guraaga ahayn dhaqamadaas oo markaynu magaalada soo galnayna noqday dhaqamo haray waxaan tusaale idiin soo qaadanaya maxamed waa nin dhalinyaro ah da'da soddomaadka ah wuxuu degan yahay UK wuxuu u safray waddanka Maraykanka markii hore dad badan kamuu garanaynin muxuu ahaa qaraabo loo tilmaamay buu rabay inuu u tago laakiin markii meesha uu tegey asxaab badan buu ka helay dad badan buu ka helay waa la soo dhaweeyey wuxuu waddankii UK ku soo noqday Ingiriiska wuxuu ku soo noqday isagoo tigidkii weeyaane kharash kale ka bixin hadiyado badan soo helay intii uu joogayna nolol fiican ku soo noolaaday si fiican loo soo dhaweeyey taasi ma aha wax iska yimi waxay raad ku leedahay oo salku ku haysaa dhaqan ka mid a dhaqamadeennii aynu lahayn intaa keliya maaha maxamed markuu UK ku soo noqday waxaa laga sugayey mag iyo qaaraan oo qiyaastii £100 Maraykanka uu tegey wuxuu maxaa la yiraahdaa wuxuu la soo kulmay soo dhaweyn iyo martisoor UK buu ku soo noqday waxa sugayay qaaraan
iyo mag. maxay tahay macnaheeda sheekadan maxaa ka khuseeya mawduucaynu ka hadlayno arrintan marka waxaynu niri waxay ku haysaa arrinta wax isa siintu iyo martisoodda iyo soo dhaweyntu waxay salka ku haysaa dhaqan aad u ballaaran oo wanaagsan oo dadka Soomaalida inteeda badani ama dadka Soomaalidu ay leeyihiin dhaqankaasi xilligeen reer guraaga ahaan waynu lahayn hadda oo aynu magaalo joognana oo magaalo soo galnayna waynu leeyahay waa dhaqan wanaagsan oo ummadaha intooda badan aan lahayn runtiina wax badan inaga badbaadiyay oo dhibaatooyin badan oo qofka Soomaali kaligii ku dhici lahaa maxaa la yiraahdaa martisoorka iyo wax isa siintaasi ee qofka caawiya weli mawduuci meeshaynu rabnaynu gaarin oo ahay dhibaato hadda weli waxaan tilmaamayaa wax wanaag arrintan waa arrin wanaagsan waana qayb ka mid ah dhaqankeenii wanaagsanaa ee aynu lahayn qayb ka mid ah weli mawduucaan rabnay ma gaarin dadka Soomaalida intooda badan waxay ahaayeen dad welina in badan oo ka mid ah ay yihiin dad xoolo raacata ah dad xoolo dhaqata ama nihiin xoolo raacatayna macnaheedu waxa weeye xoolahaynu raacnaa manaafacaadka aynu ka helno iyo waqtiga aynu gelino marka la isu barbar dhigo waxa aad u yar manaafacaadka aynu ka helno marka dadka Soomaalida dad xoolo raacata arrin xun maaha xoolo waa hanti waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu deeqay haddaynu si fiican uga faa'iideysan lahayn waxaynu ka mid ahaan lahayn sidan anigu aaminsanahay ummadaha dunida ugu qanisan runtii baynu ahaan lahayn xoolaha raacashadooda iyo dhibaatada Soomaalida maxaa iska khuseeya dhibaato badan arrin badan iska khuseyso laakiin waxa wax iska khuseeyaan qoyska Soomaalidu sida u noolaa iyo dhibaatada hadda jirta labadaas connection leh sidee ku leedahay waa arrin fikir oo baahan runtii inaad ila socotaan qoyska Soomaaliyeed wuxuu ahaa qoys sida sawirkan aad ka arkaysaan keligii jeesa oo meel degan keligii jeesa oo meel degan oo ma garanaysaa dadka uu xiriirka la leeyahay iyo dadka u dhow ay yar yihiin waxa dhici karta xilliyada qaarkood inay dadku isku soo dhawaadaan xilliyada barwaaqada ay tahay meel la wada dego laakiin inta la wada degan yahay ay yar tahay inta la wada degan yahay xilli yar kooban tahay la kala guursado la wada ciyaaro la kala tago laakiin dhaqan ahaan qoyska Soomaalida ah waa qoys keligii isaga iyo laba reer ama laba reer oo kale oo jees ay meel ay degan yihiin maxaa dhibaato ah oo ka jira waynu arki doonaa haddaad ila socotaan in dhibaatada oo dhani aragtidayda ay halkan tahay siday halkan ku tahay halkan waxay ku tahay reerka halkaa degan sawirka aad arkayseen xiriirka uu la sameynaya dadka muxuu ku salaysnaanayaa qof martiyo habeen u yimaada oo uu marti sooro waa marti soorka dhaqanka inoo noqday oo aynu hadda ka sheekeynin qof dhibaataysan oo xoolo iyo qaaraan ugu yimaada oo uu siiyo waa kii kale aynu ka hadlayno mid hiil ugu yimaada oo ugu heeliyo sax iyo khaladba iyaduna waa arrin dhaqan ahaan hadda jirta oo haddaad si fiican uga fikirtaan siyaasadeennu ay ku salaysan tahay qofka khalad iyo saxba in loogu heliyo waynu dhaadhici doonaa mid xoolihiisa dhacayo uu iska celiyo qofkan dadka contactiga la samaynaya oo uu dhici karto bishii ama labadii bilood ama saddexdii bilood qof socdaa inuu u yimaado oo intan ka mid ah waxa kaleeto maxaa la yiraahdaa qof tuuga ama qof khaa'ina oo rabo xoolihiisa inuu dhaco iska celiyo dadkaas ay ahayn dadku la contact gareynay intaasuna waa dhaqamo soo haray oo magaalada soo galay waan faahfaahin doonaa waxaynu nidhi xoolo dhaqataynu nahay qofka waxa ugu qaalisanaa xoolihiisani geelay ahayd geelaasuu dhaqan jiray dhibaato badan mala xoolaha iyo dhaqashadooda halka aan rabno marka inaynu nimaadno oo dhibaatada uga xiran tahay dhibaatada hadda Soomaalida inteeda badan haysata waa tan inta badan magaalooyinka Soomaalida ahi waxay aasaasmeen boqolkii sano ugu dambeeyay ayay magaalooyinka intooda badan magaalooyin ay dhici karto maanta inay magacyo waaweyn leeyihiin oo dhowr boqol oo kun oo qof ay degan yihiin 100 sano ka hor waxay ahayd meelal ceelo xoolaha ay ka cabaan 100 sano marka 100 sano waa cimriga qofka bini aadamka ah
markii wax yar lagu daro qofka bini aadamka cimrigiisa waa 100 sano 100 sano ma aha xilli ilbaxnimo iyo xadaaradi ku aasaasanto haddaynu lahaan lahayn habdhaqan magaalo iyo habdhaqan ismaamul way ina caawin lahayd laakiin 100 sano waa muddo yar oo kooban waa cimri qofeed way adag tahay marka ilbaxnimo iyo deegaanaansho inuu ka aasaasmo maxaan ula jeedaa magaalooyinka Soomaalida inta badan waxaan niri magaalooyinka xeebaha marka laga reebo magaalooyinka Soomaalidu intooda badan waxay ahaayeen magaalooyin 100 sano aan ka badan jirin magaalooyinka xeebaha oo iyagana dadka degan aad u yaraayeen ayaa wax magaalo ah dhulka Soomaalidu degta ka jiray magaalooyin gudaha ku jiray way jireen laakiin saameynta iyo contactiga xiriirka dadka ay leeyahay way yaraan waan ka soconayaa maxaa marka ilaa iyo hadda waxa dhici karta inaan fikriyan inaadan dareemin arrintii aan rabay inaad tilmaamay ahayd war dhibaatada xageed dhibaatada Soomaalidu maxay tahay qabaylada Soomaalidu intooda badan waxay lahayn oday dhaqameedyo dadku way firirsanaayeen sidaan tilmaamay dadku way firirsanaayeen oo qoys waliba ama labadii qoysba meel bay deganaayeen waxay lahaayeen oday dhaqameed qabaylka Soomaalidu magacyo kala duwan ugu yeeraan laakiin intooda badan oday dhaqameedyay lahaayeen maadaama dadku aanay meel wada deganayn ninkan odayga ahi qabiilka uu xukumo reerka uu xukumo meel ma wada degana sidaa daraadeed may suurtoobin odaygani inuu sameeyo awood xukun oo ma garanaysaa leh awood xukun fulin awood garsoor iyo wixii la mid ah way lahaayeen Soomaalidu dhaqan garsoor laakiin awood fulin may jirin way jireen siyaalo kala duwan oo qofka in la takooro iyo xeel noocaas way jireen laakiin awood runa oo fulineed may jirin sida daraadeed oo dhaqameedkani umay suurto galin inuu xukun u sameysmo waa dadkii kala firirsan dadka intuu gaarayay wuxuu ahaa oday dhaqameedku oday reerka ka dhaxeeya talooyinka iyo wixii danahooda qabta laakiin aan ahayn boqor dadka xukuma ciidan leh cashuur qaata oo ah waxyaalaha asaaska oo dawladda inay samaysanto cashuur in la qaado qofku sharciga u hoggaansamo ciidan uu leeyahay shaqeeya oo amarkiisa ku shaqeeya oo cid walba oo ma garanaysa amarkiisa khilaafta soo qabta dhul go'an oo uu leeyahay isagu uu maamulo waayo qabaa'ilkeenu qabaa'il xoolaha foofsaday ahaayeen halkan ay degan way ka tagayaan dhul badan bay soconayaan arrintaasi marka muusan lahayn askar manuusan lahayn canshuur qaadidna muusan lahayn sidaa daraadeed habka aynu u dhaqmaynay intaanay inoo imanin muxuu ahaa dadka reer galbeedka ama dadkii gumaystayaasha intaanay noo iman habka aynu u dhaqmaynay ma ahayn hab inoo saamaxayay ama inoo fududeynaya in habkan dowladaha casriga ah u salaysan yihiin u dhisan yihiin ama u qaabaysan yihiin oo salkeedu yahay in sharciga loo hoggaansamo qof walbana sharcigu ka sareeyo habdhaqankeena hore ma ahayn mid inagu caawinay dadku inay iyagu waxa ay iska caawin karaan iska caawiyaan mooyaane adeeg bulsho oo jiray oo qofku uu helayay ma jirin waayo qof waliba keligiisu deganaa noloshiisa isaga dabaranayay xoolaha muxuu ahaa meeshiisa xoolihiisa iyo hawlihiisa isaga dabaranayay arrinta ugu dhibaatada badan dhibaatada Soomaaliya salkeedu yahay waa arrinta tan waxaan samaysmin oo inoo samaysmin waxa la wada leeyahay qofku wuxuu leeyahay way samaysantay xoolihiisa isaga iskale waa arigaas geelaas lo'daas fardahaas waxa uu haysto waxbuu ka bixiyaa waa qof deeqsiya waa qof dhaqan wanaagsan laakiin waxaan samaysmin maadaama keligii uu degan yahay ummadan 600 700 800 kun sano intaynu halkan ku noolayn mujtamaca Soomaaliya inteeda badan qaabka u noolaayeen qofka meeshii keligii uu degan yahay cidina xukumin cidina u talinin oo keligii dawlad isu yahay waxaan samaysmin wax la wada leeyahay
waxaan kaloo tilmaanay magaalooyinkeenu inta ay magaalooyin yihiin muddo yaroo kooban oo cimri qofeed ah marka waqti tiro badan waxaynu kusoo nooleyn hab nololeedkaas ama habkaas jeeska ah ee keligiisa qofka meesha uu degan yahay waxaan marka haddaba samaysmin laba arrimood oo dowlad aasaas u ah oo ah wax la wada leeyahay oo la wada ilaashado ummadeenni uma samaysmin waxaan kaloo u samaysmin inuu qofkani sharciga u hoggaansamo waayo sharciba muu arag keligii halkaa degan yahay cidina ma xukumin cidina ma u talin nin walba isagaa keligii boqor oo amiir ah haddaad labadaa arrimood si fiican uga fikirtaan oo aad eegtaan habkeenna siyaasadeed iyo habkeenna maamul haddaad eegtaan waxay tusaale cad u tahay dhaqankani inuu saamayntiisa ugu badan ku leeyahay siyaasadaheennu iyo qaabkaynu isu maamulnaa arrinta tan fawdo iyo kala dambayn la-aan oo ku salaysan ninkii keligii meesha deganaa ee jeeska ahaa eeg sida dhaqamadii wanaagsanaa deeqsinimadii waxsasiintii martisooriyeyntii qofka dhibaataysan kaalmayntiisii aanay u baabi'in ayaanay u baabi'in dhaqanadii fawdada ahaa ee qofku keligii uu ahaa een cid xukuntaa jirin arrintaa waa muhiim inaad fahamtaan dhaqankii keligii ahaa ee qofku keligii uu deganaa ee aanay samaysmin nolol la wada wadaago sida dhaqamadii kale wanaagsanaaba u waareen oo magaaladii usoo galeen ayuu isna magaaladii usoo galay magaaladii ha soo galay dhibku keenay waxay noqotay hab nolosheenii magaalo dadka soomaalida ah intooda badan waa raacato beeraley iyo dad magaalooyinka deganaa kalluumaysato ha noqdaan ama ganacsato ha noqdaan bay ahay awooddii siyaasadeed ee dalka waxa hantay oo gacanta ku dhigay qabaa'iladii ama dadkii xoolo raacatada ahaa qofka xoolo raacatadana qaab nololeedkiisu muxuu u salaysnaa qaab nololeedkan kelinimada ah yaan cidina xukumin ee fawdada ah ee ayna soo samaysmin wax la wada wadaago habka aynu u nooleyn ama ay ahayd ama habka aynu u nooleyn ay ahayd hab qof waliba keligii meel degan yahay odayga qabiilka ah ee reerka oday dhaqameedka u ahayna uusan la wada noolayn oo qofba meel degan yahay oo markii arrimo iyo duruufo ay leeyihiin uu u kala dab qaado oo magta u kala qaado oo xoolaha u kala siiyo oo uu iyaga matelo qabaa'ilada kale marka arrimo ka galaan arrintaas waxay keentay inaanay geyiga soomaaliyeed dowlad wada xukuntaa isticmaalkii ka hor ka samaysmin laakiin ay ahaayeen qabaa'il mid waliba meel degan yahay oo qabiilkuna xitaa hal meel uusan wada deganin oo cid wada xukumin laakiin qabiilku dhexdiisa uu qof waliba gooni yahay maadaama aysan maadaama qabiilkii isagoo lafirkiisu uusan dowlad ahayn dowlad soomaaliya o dhan xukuntaana intaana inoo imanin maxaa la yidhaahdaa gumaystayaashii oo aysan samaysmin habkan cusub ee dowladnimadan cusub intaanay samaysmin soomaaliya kama hirgelin dowlad wada xukunta ama boqor awoodo inuu dadka soomaaliyeed oo dhan xukumo oo uu baro amarka iyo kala dambaynta waa arrin aad iyo aad muhiima in la fahmo haddaanay ummaddu amar iyo kala dambayn aysan samaysmin oo dhaqan loo yeelan dowladnimo ma jirayso waayo wasiirka xafiiskiisa fadhiya amarka uu soo baxay haddaanu fulayn askarigu haddaanu amarka fulayn way adkaanaysaa dowladnimo marka dhibka ugu badani arrinta u yaalla waa saas hab dowladeedkii aynu lahayn wuxuu ku salaysmay habdhaqankii qabiil aynu lahayn habdhaqanka qabiil aynu lahayn oo ahaa in wax la kala dhaco geelaa la kala dhacayay waxaa la kala dhacay kurasti waxaa la kala dhacay muxuu ahaa hantidii ummadda baa la dhacay waxa samaysmay habkii ahaa qofka ku-xiga u hiili sax iyo khalad waxa uu noqday qof jagadan intaad haysid tolkaa wax uga qabo jagadan intaad haysid tolkaa wax uga qabo awal waxay ahayd qofka in adeerkaa markuu kuu yimaado tala-ay waa la dila yidhaahdo qofku soomaaliga warankiisu qaadanaya ama qorigiisu qaadanaya waa u hiilinaya xitaa hadduu isagu gardaran yahay eeg markaynu dowladeed casriga noqonayna arrintii sidaasaynu ula kufaynaa oo ah qofku marka uu meel mansaba joogo isagoona wuxuu tirsanayaa reerkiisuna tirsanayaa inay booskan iyagu leeyihiin sidaa daraaddeed qofka
xil qabta waxa ugu badan ee reerkiisu ay ka sugayaan waxa weeye inuu hantida ummadda usoo dhaco waxaanay lahayn inuu siiyo in ma garanaysaa ummadda uu ka fadilo eeg waana habkii dhaqankii aynu lahayn ee soo jiray qofku haddii uu meel ka shaqeeyo oo uu khalad sameeyo oo khaladkii uu sameeyey lagu eriyo qofku kuma qancayo inuu khaladkii sameeyey oo u tago laakiin muxuu sameynayaa mid reerkooda ah oo jagahaya ayuu u tegayaa wuxuu rabaa inuu khaladkan u hiiliyo habka aynu usoo noolayn ee qabiilka habka aynu usoo noolayn ee qoyska keligii meesha degan ee aan cid xukuntaa jirin waxa uu saameyn ku yeeshay habkii dowladeed ee aynu lahayn ee ahaa hab fawdo ah qabiil fawdo ah ayuu qabiilkeenu wuxuu ahaa hab qabiil fawdo ah oo aan ninka odayga reerka u ah maxaa la yidhaahdaa oday dhaqameedku uusan dadka wada xukumin taas marka waxay saameyn ku yeelatay baynu nidaamkii dawliga ahaa waxay saameyn ku yeelatay noloshii ummadda oo dhan waxaan idiin soo qaaday qofka soomaaliga ah nolosha isaga waxa gooni u ah waxa isaga private lifekiisa waxa isaga goonida u ah qofka soomaalidu wuxuu ka fekeri wax bini aadamku uusan ka fekerin danihiisa gaarka ah meel kasta u maraya waxa danaha gaarka aynu leenahay bini aadamka ilaahay kama liidano in badan oo kamid ah waynu ka horeyna waynu ka caqli badannahay waynu ka dadaal badannahay laakiin waxaynu isla qiraynaa wixii la wada lahaa inaanay samaysmin wayna adkaanaysaa dowlad in la ahaado haddii waxa la wada leeyahay la wada ilaashan haddii waxa la wada leeyahay nin waliba intuu kasoo gaaro uu ka dhaco nin waliba intuu kasoo gaaro uu ka qaato way adkaanaysaa in dowladaha ay jiraan waxaynu rabno waxa tusaale idinku filan markaynu xorriyadda 60kii qaadanaynay afrika xilligaas intooda badan xoroobeen laakiin afrika inteeda badan dowlado degan oo salle baa ka jira habkay u noolaayeen may ahayn hab naga aqoon badan ama ilbaxnimo nagaga sareeya may ahayn laakiin kaliya hab nololoodkoodii qaabkay u noolaayeen baa wuxuu ahaa qabaa'il meel degan oo aan jees ahayn qabiilku meel buu wada degan yahay ama beeray haystaan ama xoolo yar bay haystaan ama way ugaarsadaan meel bay wada degan yihiin nin odaya wada xukuma nin odaya oo muxuu ah kaaba qabiila baa wada xukuma ninkaasay amarkiisa dhammaantood ka wada dambeeyaan waxaa jira wadamo badan oo sida yemen oo kale ah afghanistan oo kale ah oo nidaamka qabaligu jiro ama bakistan oo kale laakiin weli waxay nagaga duwan yihiin oo nagaga fiican yihiin qabiilkoodii baa nidaam leh oo structure dowladeed u dhisan haddii qabiilkeenu qabiil dowlad qaar dowlad u dhisan ahaan lahaa oo dadku meel wada deganaan lahaa oo qof xukumi lahaa oo amarkiisu kasoo bixi lahaa oo ku-xigeen u lahaan lahaa oynu sidaa 600-500 sano usoo noolaan lahayn maanta inaynu habkan dowladda casriga ah aynu si fudud ula qabsanaa kuma dhibaatooneen wadamadii asia iyo africa in badan boqoradu xukumi jireen markay nidaamka dawliga cusub ee casriga ee ka fiicankoodii hore ee muxuu ahaa dadkii la dhacaya iyo aysan jirin ay heleen way ka faa'iidaysteen wayna qaateen marka arrinta ugu muhiimsan ee salka dhibaatadeenu salkiisu ah waxa weeye haddii si hoose loo fikiro waxa weeye habka aynu usoo dhaqmayno hab dhaqankeenii saameyn buu ku yeeshay inu niri hab dowladnimadeenii taasoo noqotay in qabiilka waa laisku dulmin jiray geelaa lakala qaadi jiray waxaa lakala qaaday dowladnimadii kursigii baa lakala eryaday waxaa ka dhashay dowlado muxuu ahaa salkoodu qabiil yahay kursigii qabiil lagu kala riixanayo qofka la isku dulminayo la isku dhacayo inta badan waxaad arkaysaan qof waliba marka uu leeyahay dhibaatada soomaalida salkeedu waa qabiilka qofka oranaya dhibaatada soomaalida salkeedu waxa weeye dowladihiina soo maray dhibaatada soomaalida waxa weeye waa saas marka ay dadku arrimahaas oo dhan ka hadlayaan waa arrimo jira laakiin waa asbaabtii ka dhashay habdhaqankeenii hore ee kelida ahaa ee fawdada ahaa ee qofka aan la xukumin ayaa wuxuu sabab u noqday inay taasi sal u noqoto habdowladeedkeeni marka habka inagoo u nool baa reer galbeedka inoo yimaadeen reer galbeedkii marka gumaystayaasha inoo yimi ingiriis iyo faransiis iyo talyaani
dadkii soomaalida ahaa ee xoololeyda ahaa in badan saameyn kuma yeelan waayo ninkan xoolihiisu jira ninkan caddaanka ah ee muxuu ahaa yurubiyankuna magaalooyinku joogo magaalooyinkuna awalba waa iska yaryaraayeen intuu sanadaha ay joogeen marka la isku dardaro marka la eego ma badnayn 80 sano 100 sano kama badna inta ay inala joogeen muxuu ahaa gumeystayaasha reer galbeedka inta inala joogeen 100 sano 80 sano kama waqti yar kooban weeye saameyn badan kuma yeelan qof ninkii xoolihiisa haystay ee jeeska ahaa ee keligii meesha deganaa saameyn badan kuma yeelan oo maysan samaysmin wax la wada wadaago marka uu ka baxay markay inaga baxeen muxuu ahaa gumeystayaashii reer Yurub oo noqotay inaynu dawlad samaysano fahamkeenu dawladeed wuxuu noqday faham ku salaysan fahamkii qabiilka fahamkii walaalo wax ila dhac walaalo wax ila dil walaalo wax ila boob ahaa ayay dawladnimadeena ku salaysantay sidii geela loo kala dhici jiray baa kulaastii baarlamaanka loo kala dhacay hantidii wadanka loo kala dhacay dhammaan marka arrimahaas aynu ka hadlayno qofka Soomaaliga ah gabagabadu wuxuu noqonayaa qofka Soomaaliga ah marka uu dawlad noqdo oo aynu gaarno heer qofka uu sharciga u hoggaansamo oo uu aqbalo qofka ka sareeya qabiilku doonaha ahaadee inuu yahay qofkii madaxdiisa ahaa ayaynu dawlad noqonayno goorma la gaarayaa xalkuna waa maxay waa su'aal u baahan iyaduna ka baarandegid aragti iyo maxaa la yiraahdaa ka fiilsi badan insha Allah ta'ala barnaamijka qaybtiisa labaad ayaan idinku soo gudbin doonaa xalka sida aniga ay ilo muuqato haddaynu raacno muddo aan 50 sano ka badnayn aynu noqonayno ummad ka tilmaaman ummadaha dadka Soomaalida waa dad firfircoon laakiin nasiib darro habdhaqankeenu hore ee kelida ahaa ayaa inoo saamixi waayay inaan samaysano waxaynu wada leenahay noloshan iyo dawladnimadan casriga cusubina waxay u baahan tahay wax la wada leeyahay oo la wada ilaashanayo dawladuhu waxay ku kala horumarsan yihiin sida ay u ilaashadaan waxay leeyihiin waxayna ku kala dibdhacsan yihiin siday u boobaan waxay wada leeyihiin barnaamijka qaybtiisa labaad waxaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala xalkii siday aniga ila tahay oo muddo badan ka baaraandegayay cilmi baaris badan ka sameeyay oo idinla qaybsan doonaan intaan barnaamij kale oo kale isku arkayno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh